guddoonka baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka maamulka gobolka heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan bahda saxaafadda bulshaweynta Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaanna midda degmada Jowhar waxaan ku salaamta salaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam Allah ayaanu mahadcelinaynaa oo annaga oo nabada nagu soo celiyay caasimadii dawladda Hirshabeelle ee Jowhar waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo soo dhaweyntii aan loo kala herin guud ahaan mas'uuliyiinta baarlamaanka golaha wasiirada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan heer gobol iyo heer degmo runtii waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin soo dhaweynta balaaran ee aad maanta noogu samayseen caasimadda Jowhar waxaan gaar ahaan u mahadcelinayaa abaabulka wanaagsan ay sameeyeen maamulku gaar ahaanna bahda waxbarashada qaabka ay uga qayb qaateen soo dhaweynta runtii waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadaalka ay bulshadu samaysay hadday tahay fatahaadihii webiga hadday tahay amnigii dadaalka iyo isku duubnida ka muuqato bulshaweynta Hirshabeelle waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ha lagula sii dhawaado waa intaas oo lagula sii dhawaado dadaalkiina runtii waa ka mahadcelinayo isku duubnidiina sad wada ogsoontiiba maalmahan safar ayaan ku maqnaay dalka dibadiisa iyo gudihiisa degmooyin kamida state-kana booqashaan ku tagno degmada Cadal ay kamid tahay iyo Warshiiq oo guud ahaan fiirinaynay ummadda nolosheeda iyo amnigeeda iyo horumarka guud sidoo yahay waxaan ugu dambeyn shir muhiim ah aan uga qayb galnay shirkii dalka doorashadiisa iyo horu socodkii doorashooyinka haday aqalkii sare tahay iyo haday golaha shacabka tahayba looga hadlayo habraacyadii si guul ayuuna ku soo dhamaaday shirka madasha wada tashiga qaranka waxaana ka soo baxay qodobo iyo habraacyo la isku waafaqay insha Allah dalkuna guud ahaan doorasho u aaday inta dhimanna aqalka sare waa la wada dhameystiri doonaa annagana insha Allah hadii la raali ka noqdo wiiga soo socdo waxaan geli doonaa doorashada aqalka sare hadii la raali ka noqdo insha Allah waxaan rajaynaynaa doorasho ummadda ku wada faraxdo inay dhici doonto Hirshabeelle hadii la raali ka noqdo si xaq ah oo xalaal ah qof waliba ay ku qanacsan tahay ayaa doorasho loo qaban doonaa hadii la raali ka noqdo